كورن هدي لغو أوران لها صاحب لنغو مروغده مروغدو وقايب كمد نولش ما جوجين كرتيد حالadaha iyo qaabka ay kugu imaanayso noloshu laakiin wad maareyn kartaa dadku badanaa waxay ka murugoodaan sababta ay u dareemayaan murugta laakiin haddaad aqbashid oo saaxiib la noqotid way kuu fududaanaysaa inaad xalisid waxaa jirta xaalado badan oo mararka qaar noloshaada ku diidaya inaad run u sheegto laakiin inaad naftaada runta u sheegto waa shay lama huraan ah markii aad naftaada u sheegto oo aad sharaxdid dhibka ku haysta aadna qortid waxaad ogaan kartaa markaas tilaabooyinka ugu wanaagsan ee aad qaadi karto si aad u xallisid walwalkii aad qabtay mararka qaar waxaa kugu imaanaya xaalado badan oo isdul saaran adiguna aad gudaha ka dareemayso culays iyo kulayl badan sida aad u sugto cuntada kulul ilaa ay ka qaboobayso si aynaanan ugu guban waxaa sidoo kale ku soo maraya noloshaada xaalado qaar ama dhibaatooyin keeni kara inaad ka xanaaqdo markaas oo kale waxa muhiim ah ama wanaagsan in aad sugtid ilaa arrintaas ay ka degayso ama ay ka qaboobayso dhibaatooyinka qaar uma baahna oo kaliya in isla markaas aad ka hortagtid laakiin waxay u baahan yihiin in aad waqti siisid oo aad sugtid ilaa ay ka degayso arrintu haddii kale adiga oo kulul iyo arrinta oo kacsan ayaa isla qarxaya marka aad ka dhigto wax aan macno lahayn dhibka wuxuu isu beddelaa mid aan awood badan lahayn raad weyna kugu yeelan buunbuuninta iyo cabashada badan waa shidaalka dhibka sidii uu ku sii badan lahaa sababtoo ah haddii aad baxaya iska dayso isaga ugu dambayn isdaminaya laakiin haddii aad gaas ku sii shubto waa sii hulcayaa oo cirku gaarayaa dhibkuna sidaas buu ka dhigan yahay haddii ay wax inagu dhacaan oo aan dib u aragno sida inaan qaylino walwalno boodboodno adeegsano erayada sida alla ba'ayay hoogayay iyo wixii la mid ah dhibku waa kaaga sii darayaa farxaduna waa kaa sii fogaanaysaa muhiimadda aan laga tegi karin waxa ah haddaad soo geshid meel aad u qurux badan oo ay yaalaan wax walba aad jeceshahay kadibna ay ku muddo qodax yar aadna maanta oo dhan ku mashquushid qodaxdaas ku mudday waxaad iloobaysaa in aad ku raaxaysatid quruxdaas nolosha qofkuna waa sidaas oo kale haddii maanta oo dhan aad ku mashquushid oo muhiimadda saartid dhibaatada yar ee ku soo gaartay waxaad ahaanaysaa qof murugaysan haddaba muhiimad badan ha siinin dhibaatada yar ee aad dareemaysid ama aad la kulmaysid noloshaada si aysan kuu ilowsiin farxaddaadii waxaa muhiim ah inaad markasta raadisid xalka duruufta iyo dhibka ku haystaha ka dhigan cududaar ee kac oo meesha ka kac waxaad ka awood badan tahay dhammaan dhibka ku haysta waadna ka khatarsan tahay dhibka ku haysta ogow in dhibaato walba ay leedahay xal raadi xalka kuna dhaqaaq samayntiisa sidoo kale isku day in aad la wadaagtid asxaab taas waxay kuu suurtagelinaysaa in aad hesho xal badan oo kaa maqnaa